gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciidahana murashaxa madaxweynaha xisbigaasi injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ka hadlay doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo dalka Soomaaliya waxaanu fariin u diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee dooran doona madaxweynaha Soomaaliya hogaamin doona 5 sano ee soo socota injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa isagoo arintaasi ka hadlay waxa uu yiri qofkii lacagta badan u footeynaya kaas xildhibaan noqonayo ayaa weey 24 hadda qof baa u ordiyay guri sare sameeyay oo u bixiyeen guriga sare oo ku fadhiya dowlad goboleed dhisana ma jirto gurigaasi ma leh sharci ku shaqeynay wax dowlad goboleed dhisan oo nololkana way dhisan oo madaxa ka nool iyo qulideeda aanay lahayn institutions waxa weeye waddanka Puntland ma bahay arinta maanta relation kooda ka shaqeeya dowladda cusub haatina Xasan Sheekh ilaa maalintu yimi wuxuu ka shaqeeyay inuu raadkii wada hadalada baabiyo wax maalmo meel isku xoqaba maalmo meel ku xoqaba waa markii dambe deynoo keenay bishii Maars 2015 wakiinoo keenay maareeye iyo niman reer Soomaaliland أنا حاسس تاشين ما هيس إنجيل ما هيس إنج أنت لو كان اللي بحنا أنت أصلا لو كنت كم سينية حرام وي لكن حرام صيح ما نسى ما كان حق درجة فوتيس كقاطع وحولينا أنا وصماء إحنا كعضي فورمولا قاطع إن شاء الله تعالى السلام عليكم gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faysal Cali Waraabe oo TV-ga Soomaali News wax ka weydiiyay waqtiga uu soo buuxin doono gudoomiyaha xisbigaasi oo wali ka banaan xisbigaasi ayaa waxa uu kaga jawaabay ولي وقت رئيسنا إن شاء الله تعالى وحمد علينا كفير سنة قف إلهي كرنا سبحانه وتعالى ولي بقى أنه هوش بدأ كده سجن كوري جينا وحن شاء الله إنه ملحوينا أو نقول كحيين إسكا أيدا لا إسكا فديه إنه نقول تسوي بس وسارنا وشقية أنا وإحنا صهري لما ما يذكره وسارد أنا ما هدي بدي الدفاع dhinaca kalena injineer Faysal Cali Waraabe wax laga weydiiyay gudida farsame ee wada hadalada Soomaaliya iyo Khaatuum ee uu ka mid ka yahay dhawaanka amba bixi doona Hargeysa kuna kulmi doona wadanka Djibouti ayaa waxa uu yiri fiicanyihiin Khaatuum dad fiican weeye inaga wax inaga qaldanaayo ana aqriga ma gali karto in maanta reer buu hoole oo 90 kilomitir u jirta Burco in insha Allah sanada aan gaadhi weyna saanta maxay tinikaasi inta ka muddo waayeen ولكن أنا وحكرني مكان صاف جنة إن شاء الله تعالى وأدي أضبان ومكان اسمه بلين يا بروفيسور علي خليف وأرنتن كهرمود إن شاء الله تعالى إن المسلمين تام بالسلاسة يسكوني مهرنا كل هم في عدونا كل عالم كل شباب الجيران بروكاس دان وبرينا معاونة بارك الله بدي بقولك بالإحدى بروحي كبر نيوز هرقيسا